السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وأشرف المرسلين. أصحاب تواني السلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كتب الله سبحانه وتعالى مع سبحانه ما أنتنا محايدي وضع ما أنت وحايدي وضع حرم الكيان وضع وفائدة أولي هاي قفك أو وحويان وكتبتو عادده amba uu ka iman waayo amba infection haddaad leedahay amba hoosta amba ilmagaleenka dhiig kaaga haray waxaas oo dhan ayuu ka daweeyaa xarmalku. systemkaan u sameynana amba saan u isticmaalano ayaan rabaa inaan idiga sheekeeyo insha allah asxaabay. ka faa'iidaysta waa fursad qaaliya, isticmaala. waa xarmalkii oon biyo kusoo dhex kariyey. waxa weeyaan waa idin tusayaa sidii aan malqaacadan ugu qaaday insha allah asxaabay. wakaasi insha allah waxaan rabnaa insha allah sidii xafaayadadii amba maxaa la yiraahdaa sida la yiraahdo kulukuushka mar horena waan sameeyey insha allah. qofka hadduu rabo cajirdaayga hore ayuu ka eegan karaa insha allah. waa kan intaad qaadid kuushka intaad qaadid marka insha allah ayaad saa u dhex dhigaysaa. waan idin tusaya insha allah. biyuhu waa yar kulayl marka insha allah waa idin tusi doonaa. waxa weeyaan biyihii dabkaan saaray. marka aan dabka saaray biyaha uu faxay markuu karay ayaan ku shubay malqaacad ayaan ku shubay xarmalka ah. malqaacadaas oo xarmalaan ku shubay marka siduu u qaboobo ayaan ugu talagalay in aan usii kariyo. marka laakiin waa idiin macnaynayaa biyihii wakaa biyihii markaan sameeyey aan dabka saaray markay faxeen ee aada u kululaadeen ayaan malqaacad xarmala ku shubay. malqaacad quraan ku daray. malqaacadaasi uu ku faxay waynaga arkaya. xarmalkii kalarkiisi ayaa isbedelay. marka waxa weeyaan qofku hadduu uur leeyahay inuu cabo maaha, laakiin waxa xanuuno badan ayuu ka daweeyahay. 27 xanuun ayuu ka daweeyahay. laakiin sida xanuunada korolaha iyo waxaasoo dhan ee dadka ku dhacaya waa ka dawo. waad ku bukhursanaysaa ku unsi oo kale ayaad afka iyo sanka ayaad ka qaadanaysaa. isaga qudhadiisa waad ku foorarsanaysaa. waxaad ka qaadanaysaa waxa sanka ayaad ka qaadanaysaa. uu kaa kaxaynayaa xumada xanuunada dhan buu kaa kaxaynayaa. marka waxaan maanta sameynaynaa insha allah haddii ilmagaleenkaaga dhiig ku harsan yahay, haddii bakteeriyaad haysid, maadaama ood doonaysid in aad uur qaadid waa inaad horta iskilin garaysaa ood isnadiifisaa. markaas unbaa meeshii nadiifa unbaa wax istaagi karaa. marka waxa weeyaan laakiin haddii maad aragtay meeshu bakteeriya ku jirto waxa weeyaan uurkii way adag tahay. isaga ayaa diidaya marka oo soo daadinaya. marka insha allah waa inaan iska kilin garaynaa bakteeriyada. marka halkan biyihii waad aragtiin kalarkii baa isbedelay. kalarkii waa isbedelay. waa ka hoosta ayuu ku jiraa xarmalkii waa inaga arkaya. xarmalkii wakaasi waa inaga arkaya. biyaha kalarkiisa isbedelay. maasha allah awood buu leeyahay. waa xarmalkii sidee ayuu isku bedelay. marka insha allah midhaha ayaan ka meerayaa. biyaha waxba kuma falayo, laakiin midhaha ayaan ka meerayaa. waxaan rabaa in aan ku dhex shubto sidee baasimaagi amba plastic meesha yaalay ayaan ku dul shubi doonaa si aan hoosta loo gashado oo waxa uskag oo dhan ayuu kasoo nadiifinayaa. sidii markii hore aan sameeyey oo kale. basashu waa dawo. bakteeriyadoo dhan bay basashu baabiisaa. marka asxaabi ka faa'iidaysta. waa fursad qaali, waxba ka baqan. waa dawo. waxa weeyaan waa dawo. waxa weeyaan maca qofka bini'aadanka jirkiisu caafimaad yahay. waa ka rasuulku yiri calayhi salaatu wasalaam qofka 40 cisho caba waxa weeyaan waxyaalo wanaagsan ayuu u horseedayaa. marka waxa weeyaan asxaabay yaa ka baqan bakteeriya iyo ilmaha oo kaa raaga. faa'iido badan buu leedahay. hoostaad gashanaysaa bakteeriyada oo dhan buu kaa saaraya. maca dhiigga kugu haray wixii oo dhan ayuu soo kilin garaynayaa. marka insha allah aan ka faa'iidaysano. waa fursad qaaliya insha allah. anigu waan ku faraxsanahay. waxyaalo badan oonan ka arkin soomaalida aanbaanan ka maqal ayaan la kulmay. marka insha allah idinkuna inaad ii faa'iidaysiin weeyaan. insha allah subscribe-kaada siisiin aad u sheer garaysiin walaalihiina kale insha allah ood u wada sheer garaysiin wala si uga faa'iidaystaan fursadda qaaliga iyaguna insha allah. qof kasta oo dhiig waxaa bilaa cudur amba bilaa xanuun uu ka maqan yahay
oo dhibaato jirin waxa waa isticmaali karaa. waxa weeyaan ilaahay subxaana watacaala dhiigga kugu haray ayuu kaa keenaya. marka insha allah asxaabi isticmaala. caadadu hadday kaa raagtay, caadadu haddayna kaa tagtay, wax kaste oo waxa weeyaan bacteria oo hoosta ku jiro dhan ayaa lagu isticmaalaya. marka asxaabi isticmaala insha allah ilana soo socodsiiya insha allah inay bacteriada nadiifiso insha allah. mida kalete dumarka uunba hortees isbaara oo intaa mashquulsan. gabadhu haddii waxay u badan tahay gabadhu inta badan inay uur ka qaadi karto, ay raggu cilada leeyihiin amba raggu ay waxa weeyaan dhibaato keenayso amba manidiisu ayna awood lahayn. marka insha allah gabadhu haddii ay la yidhahdo waa caadi, waad uurka waad qaadi kartaa, waa inay isku daydaa inuu ninkeygana dhakhtarka tago uu isbaaro insha allah. aniga intaan dadaali karo waan isoo caawinay insha allah. asxaabay gabadh baa su-aalii soo sheegtay. marka waxa weeyaan laakiin insha allah bacteria dhici karta waxaan uurkaadu qaadayn. wuxuun baa jira sabab, wax walba waa sabab. khaasata fitamiinaadka hala cuno. waa idiga sheekeeyay 2 gabdhood oo fitamiinka ka maqan yahay uur ayay qaadeen. waa idiga sheekeeyay Afrika iyagoo ku nool oo maalin walba dhakhtar tagay oo lacagtii ka dhameeyey. show jirkaaga hadduu fitamiinku ka maqan yahay ogow way adagtahay saad uur u qaadid. marka asxaabay ka faa'iideysta fursadda qaaliga fitamiinkana isku ogaada insha allah. waana idii soo wadaa insha allah. kiniin baa jira haddii qofku uurka qaado ilma galeenka adkaynaya oo xoojinaya uuna ilmuhu suuna kaaga soo daadin insha allah. kaana aniga waan idiin keeni doonaa insha allah, waan isoo tusi doonaa. marka asxaabay waxaan kaloo sameynaynaa insha allah in dumarka bacteriada amba infectionka hoosta ku leh kan marka aan sameyno oon dul saarno, waxaan kaloo sameynaynaa inaad waxa weeyaan sida uusigii oo kale aad bukhuursatid ood hoosta iska gelisid. dab baan insha allah soo shidaya, waad arki doontiin insha allah. asxaabay waa kan dab baan soo qaaday insha allah. waxa weeyaan waxaad doonaysid waxaad sameynaysaa xarmalkaad ku shubaysaa. markaad xarmalka ku shubtid ayaad hoosta ku bukhuursanaysaa sida uusigii oo kale. dharka hoostiisaad gashanaysaa. waxa weeyaan aad buu uumigaasi ayaa bacteriada dilaysa. marka insha allah hala isticmaalo, biyo kululna hala dhex fadhiisto. asxaabi waka insha allah xarmalkan ku darayaa. waa inaga arkaya maasha allah in aqalka oo dhan baad waa xoogaa waa qarmuun, laakiin waa inaga arkaa dhacdhacda haya insha allah. hoosta ayaad iskaga bukhuurinaysaa sidii uusigii oo kale. marka insha allah aad buu qarmuuye bacteriada dhan buu kaa safeynaya insha allah. sidaasaanu yara dul saaranaynaa. waad dul saaraysaa insha allah. marka waxaad dhigaysaa baashii halka saraan kaga soo sheekeeyay xafaayadda amba kuushka